soo dhawaada saaxiibyaal muuqaalkan waxaan kugu tusayaa sida smart art loogu sameynayo PowerPoint adigoo isticmaalaya hadaba aan ku tuso waa kana waxa soo gashtay slide-kan ayaa soo gashtay slide-kan marka hore waxaan qorayaa qaybaha computerka ayaan rabaa in aan smart art aan ka sameeyo aan u baahanahay qaybtaan imaanaya kadibna waxaan ku dhufanayaa paragraph kadibna waxaan leeyahay bullet oo ay imaaday kadibna waxaan leeyahay qoraalkii aan ku sameyn lahaa smart art-ga ayaan qorayaa tusaale computer ayaan leeyahay kadib enter marka aan enter dhaho computerka meeqa loo qaybinayaa si aan u ogaado qaybihiisa levelka labaad ayaan ka dhigayaa si level labaad aan ugu dhigo tab ayaan keyboard ka taabanaya tab ayaan ku dhuftay kadib levelka labaad ayuu noqday kadibna waxaan leeyahay computerka waxa loo qaybinayaa CPU maskaxda computerka meeshii fikiraysay iyo storage meeshii wax keedinaysay waa kasta marka storage ayaan rabaa inaan sii qaybiyo enter kadibna tab ayaan leeyahay storage asigana waxa loo qaybinayaa RAM enter iyo ROM ayaa loo qaybinayaa ROM-ka asigana waxaan rabaa inaan sii qaybiyaan u baahanahay enter leeyahay kadibna tab ROM-ka waxa loo qaybinayaa SSD enter kadibna waxa loo qaybinayaa HDD waa kasta labadaas ayaa loo qaybinayaa marka sidaani aad u diyaarsato xogta oo level walba hoos imaanaysa oo kale u diyaarsato kadib waxaad sameynaysaa si aad smart art ugu dhigto waa wada dooranaysaa dhamaantooda select aad ku sameynaysaa ama haddii aad banaanka aad ku dhufato control A leedahay waa kasta dhamaantooda waa ku wada dooran yihiin kadib paragraph groupka ayaa tagaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa convert to smart art u bedel halkaas ku dhufanaysaa kadibna waa kana smart art noo carabta haddii kuwaani aad u baahan tahay waa dooran kartaa kuwa ka badan haddii aad u baahan tahay ani waxaan rabaa hadeer more smart art ayaan rabaa halkaas ku dhufanayaa kadibna waa kan halkaan imaanaya waxaa leeyahay marka hierarchical ku dhufanaya kadibna waa kana midkaan ayaan u baahanahay halkaas ku dhufanaya kadibna okay ayaan leeyahay waa kaasa hadeer waxaa loo bedelay smart art ayaa loo bedelay si aan colorkaan u bedelo waxaan leeyahay change color kadibna waa kana halkaan ayaan ku dhufanaya waa kana ayaan colorka waa bedelay haddii asiga dhan aan bedelayo marka la uma baahnid in smart art ka samaysid waxa ku dhufanaysaa change layout ayaa ku dhufanaya waa kaasa nooca rabta marka haddii aad nooca aad rabto waa kaasa jif ayaa laga dhigayaa dhamaantood ayagoo isku xirxiran haddii kuwa kale aad u baahan tahay waa kaasa kan waxa kale haddii aad u baahan tahay kan waa kana mid sawir wato iyo mid kaleba waad ka helaysaa midkaan oo kale aan u baahanahay oo kale waa kaasa sidaasi ayaa loo sameynayaa smart art in PowerPoint oo degdeg ah waxaan filayaa inaad ka heshay muuqaalkan fadlan like star naguna soo bir haddii aad weli nagu soo birin haddii aad rabto inaad si fiican u barato PowerPoint koorsada PowerPoint ayaa la bilaabayaa WhatsApp-ka igala soo xiriir si aad ugu soo biirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.